gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku xunnahay oo mar walba ragga Soomaaliyeed ay nooga soo cabtaan oo mar walba ninka niyadiisa sii jeedisa maxaa kamid ah nadaafadii gabar kasta markay banaanka taagan tahay oo aan la qabin oo gabar ay tahay oo calafdoon ay tahay gabar ka qurux badan ma leh حتى مالك أي يعني بحيث أي مال آديس وشاط بالعارس تحول هاي بريمة أصحى كار لسي because she wanted to become beautiful إنها قرح بدنا تعرفها لكن مركل الجورسدو هل ده مالك الرشوا والرشوا بكتب مالك كو لا أور بالله ما ولع الصاقله that is the end of the life كمان الصوماليات إن استرترتو من كان مرة بأي سيارة تعرسات هذه يكوه وأسكت معته هذين كلا عروسة أوجودن بس تضبط أي كبحث حال الذين كربا مركا وحيابها dadka qalbigooda soo jiita indhaha dadka maxaa soo jiita quruxda ninkaaga hada u hadiyaysid quruxdaada uma leen ma inuu meel kale ka fiirinayo soo qurxin ninkaaga nadaafadu waa qayb kamid ah nolosha an-nadaafatu nisfu al-iimaan nadaafadu maxay kamid tahay iimaanka barkiisa lagu dhahay fiiri nadaafadu marka iimaanka barkiisa kamid noqoto guurkaagi wuxuu kaamilay diintaadi maxaa u guursatay marka hadaad isku qurxineen asaga waxa isku qurxinaa oo kaliya maalmihi xaflada ay jiraan aroos baa jira asalkaas fadhiya inta la soo martay baala barbaas wuxuu ku leeyahay xataa way barteen nimanka Soomaaliyeed maalinku ku akado qurux bad wuxuu ku leeyahay maanta maxaa jira ma martaqaad baa jira sama wallahi alcadiim way ku weydiinayaan maanta maxaa jira ku leeyahay ma dad baa noo soo socda that means asaga priority ma siinba isku ma qurxin priority waxa siisay ummadii kala banaanka hadaba yaa way qofka alla noo shahay adiga ma soo ogtahay inay jiraan gabdho badan ama dumar badan oo jaanis u waayay inay guursadaan ama ilaahay baa ugu talagalin ama shaqo iyo waqti bay ku lumisay waqtigeedii ama wax family problem baa jirta ma guursan karto ama way xanuunsan tahay ma ilaahay ba u qadarin adiga markuu ilaahay gift ku siiyay inaad guursatid oo ilaahay ku qoray inaad guursatid oo calafkaaga uu ku imaaday maxaa ku diiday calafkaaga qalbigiisa inaad degto oo soo jiidatid maxaa isla mid dhigaysaa yani qof aan waxba haysan ninkaaga mar walba isku qurxi ninka markuu yimaado maxaa sameeynaa for example dhaqamada Soomaalida waxa kamid ah dad baa ku iimaanaya mar walba qolka ninkaaga ha ka duwanaado qolalka kale billahi calaykum sidoo kale ninkaaga u duceey mar walba asagana ha ku duceeyo isu duceeyo mar walba marka la isu duceynayo ma ahan markay balaayad timaado in la isu duceeyo markii biilku yaraado oo balaayo dhacdo beelada gabadha ilaahu irsaha qadar rabbi adaa baxsha sooma laakiin waxa la idinka rabaa seeninkaga yani power see ku yeelanaya awood see ku yeelanaya hadaad u duceyn markasta maqashi markuu baxay adoo shaatiga u xiraya shaatiyaasha ma xirnaa horta adoo shaatiga u xiraya adoo shaatiga u xiraya maqashii ninkaaga maxaa ku dhahaysaa ilaahay ka soo nabad celiyo ilaahay waxaan talaabo kasta aad qaadaysid ilaahay ka dhiga talaabo khayr badan soo noqo adoo nabada you see shaqada Allah ku fududeeyo waa runteed waa u duceysa shaqada Allah ku fududeeyo you see because of waa maqashinaysa xaalada waliba asaga waa maqashinaysa waxa leedahay ilaahu ninkayga ee xifdi rabbi raxmaan waa ogtaasa u jeclaa kama maarmeen